madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay ka hadlay qodobada asaaska u ah aqoonsiga Israel siisay Somaliland. Xasan Sheekh oo wareysigii ugu horeeyay ee qadiyadan quseeyay shalay siiyay warbaahinta Al Jazeera ayaa aqoonsiga Israel ugu yeeray mid lama filaan ah oo yaab lahaa. Waxaana uu wareysigan khaaska ah ku yiri Somaliland waqti dheer ayay doonaysay go'itaanka in ka badan 30 sano balse ma jirin hal dal oo ku dhiiriday aqoonsiga. xasan oo sheegay in docda jamhuuriyadda Soomaaliya uu weligiisba jiray dadaal nabdoon oo doonistiisu ahayd in dalka la mideeyo ayaa sheegay in lama filaan iyo wax naadir ahayd in 34 sano kadib Israel oo aan la aqoon halka ay marxaladan ka soo gashay ay shaaciso aqoonsiga Somaliland. midda naadirka ah ee madaxweyne xasan wareysigiisan ku sheegay ayaa ahayd qodobada uu rumaysan yahay inay isku afkarteen labada dhinac ee sababay in Somaliland aqoonsiga xilligan ka hesho Israel. isagoo taas ka hadlayana waxa uu xusay in Somaliland aqbashay 3 shuruudood oo waaweyn si ay u hesho ixtiraafkan, kuwa oo kala ahaa sida Al Jazeera ka xigtay xasan in dhulka Somaliland loo soo dib u dejin loogu sameeyo Falastiiniyiinta, in Israel saldhig military oo istiraatiiji ah ka yagleelato badxeebeedka gacanka cadan, iyo in Somaliland si rasmi ah ugu biirto dalalka qaybta ka ah heshiiska Abraham Accords ee ay haatan ku jiraan dalal carbeedyada kala ah Morocco, Bahrain, Sudan iyo Imaaraadka. ugu heshiiska Ibraahimiyada qorshihiisu waa inay galaan guud ahaan dalalka carbeed iyo dawladaha islaamka ah oo dhan si bay hindisayaashiisu yiraahdeen looga hortago waxay ugu yeeraan khataraha amni ee Israel ay ka wajihi karto dunida islaamka mustaqbalka. waxa uu xasan sheegay inay haatan Israel joogitaan ku leedahay gudaha Somaliland sida ay ku heleen khabarada sirdoon. waxa uu wareysigan ku xusay in Israel isku dayayso inay si khasab ah rayidka Falastiin ugu rari doonto carrada Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. waxaana uu si weyn uga digay joogitaanka Yuhuudda ee gobolka Geeska Afrika iyo badda cas oo uu sheegay inay khatar uun soo kordhin doonto. waxa uu intaas ku daray in doonista ugu weyn ee Israel tahay maamulidda jidbiyoodyada xiriiriya dhaqaalaha dunida sida gobolka ay badda cas ku taal iyo gacanka cadmeed. docda kale ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo dhankiisa isaguna qadiyadan ka hadlay ayaa sheegay in Somaliland ay doonaysay inay qayb ka noqoto heshiiska Ibraahimiyada, taasna ay u sahashay inay aqoonsadaan. So why not support democratic, moderate country, Muslim country that wants to join the Abraham Accords? I think everybody should do that. But if we have to be first. maxaa diidaya taageeridda nidaam dimuqraadi ah, casri ah oo muslim ah oo doonaya inuu ku soo biiro Abraham Accords? waxaan u malaynayaa cid walba inay aqoonsan lahayd. I think everybody should do that. But if we have to be first. I guess we didn't see it coming, and you're the first nation, and I'm going, Somaliland? Yeah, Somalia. Soomaaliya ayaa weli docdeeda ku howlan dadaalada diblomaasiyadeed ee ka dhanka ah aqoonsigan kiciyay duufaanta siyaasadeed. ha yeeshee mustawaha Mareykanka jaalka dhow ee Israel weli ma aha mid la hubo docda uu jiro.